wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Sum News TV ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arday cabasho ka muujisay deeq waxbarasho oo ay ka heleen jaamacadda Hargeysa. ardaydaas oo sheegay in la weydiiyay lacagtii bisha. haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa sheegay in ardaydaas laga bixinayo lacagta. sidoo kale ardaydu waxay ku cawdeen in imtixaankii jaamacadda oo la galayo 24ka ay jaamacaddu sheegtay inaanay galaynin haddii aanay bixin lacagtaasi. wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay inay ardaydu galayaan imtixaanaadkoodii. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa uu fariin u diray mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka. sanadkii hore 62 arday yaan ku qornay jaamacadda Hargeysa sida isku rabshadayaan. jaamacadda Hargeysa culays bay ku noqotay. waxaanu isla qaadanay jaamacadda Hargeysa sanadka horena inay wasaaraddu bixiso 3 sanadood dambana jaamacaddu scholarship ka haysiiso. sanadkii hore waanu bixinay 15,000 iyo xoogaa lacag la socday semesterkii hore kana waanu bixinay haddii la yiraahdo. waxa weeyaan lacagtu maanu raadinaa waa aniga wasaaraddu meel wax ka soo galaan ma jirto. kolka weyn la raadiyaa oo la si loo helaba loo raadiyaa. taas waa ardayda oo orto ku abshara waa la idinka bixinaya haddii la yiraahdo. اللهم استعلى وحرعة nimankan asxaabta ee yarka dhaxboodaya ee la maxaa ay kala haysan iyagu maxay u hayaan hadda u hayaan meey ka bixiyaan kulliba biyo godan bay isku meedaa biyuhu wasaaraddu hadda la yiraahdo iyada dadaal u galaysa ilaa bari ilaa maantada si lacagta u bixin lahayd ay u shubi lahayd balaankana way noogu jirtaa. arday waxa noolo qorashay hadii intaan soo weyneen la hadalno oo jaga nuusi qorro oo bina jaamacadda maamulkeega oo ardaydu imtixaankayga gasho. xisbiyada mucaaradka wasiir waxay ku baaqeen in haddii imtixaan ay ardaydu geli weydo ay mudaharada ardaydu sameynayaan. mudaharaadka maxaa ka leedahay? waxaanu kale horta iyagaan weydiinanaa ardayda maxaa u tarayaan wax la u tarayaan ma jirtaan mid ma ka bixinayaan hal arday marka wax la ninkii aan ku lisan maxay ahayd nin aan ku maxamed adoo waxa weeyaan wax la qabanaya ma jirto iyaga maxay tarayaan arday ma ka bixinay hal arday 62 ka arday bal sheegan inta ka bixinayaan. anigu wasaarad ahaan ku hor sanadkii semester hore ka bixinay kana waan ka howljirnaa intayna gaadhin 24ka inaan maxay lacagta shubno. ardayda waa laga bixinaa tacliintoodii waxbarashadooda waa laga bixinaa. ardayda bixinaysa waa Maxamed Xuseen Ibrahim Sum News TV magaalada Hargeysa.